qof walba Soomaaliyeed ama wasiir ahaw ama cid kale ahaw oo xil u haya dawladda Soomaaliya oo ku fikiraya inaad ku takrifasho xoolaha ummadda waxaan ku sheegayaa inaadan alfaneyn wuu calfaday waana lagu marqaati furay maxaad ka qaban kartaa ilaahay wuxuu mahad ku leeyahay waxaan hoos ku waday 9 bilood ilaa intaas sano in maanta cawlaan isku soo baxay horta mahad ku leeyahay aad uga alxamdulillah mid labaad waxaan waa inaan aad ugu mahad celiyo wasiirka aniga qaasatan regaars maadaama aan dhaxtaaganahay maanta dadkayna hor fadhiyo wasiirka wuxuu isii mashruuci ugu weynaa Soomaaliya uu qabto Soomaaliya ka qabto anu isii KA Airways diyaarad la dhaho flight Soomaaliya ilaa Nairobi from Nairobi to Mogadishu flight qandaraas aad u weyn u siiyay oo nin Soomaali iyo gaalo atartan isku jirnay oo ani siiyay aad oo ugu mahadcelinayaa wasiirkaagu wuxuu ku eedeysan yahay iyo qaraabakiil in lagu bixiyo qandaraas ku tagrifal awoodeed iyo xatooyo xoolo dadweyne haddaba su'aashu waxay tahay mudane ra'iisul wasaare maxaad ka qaban kartaa ha isku xadin ha isku dhicin waa laga daba imaanayaa waana lagu soo xirayaa